Taariikhda Islaamka waxaa ku xusan qisooyin iyo tusaalayaal mudan in casharo laga qaato. Qisooyinkaas waxaa ka mid ah taariikhdii cajiibka ahayd ee taabicigii Cumar ibn Cabdilcasiis oo marna culimmadu ku magacaabaan khaliifkii shanaad. Waxay taariikhdu xustay in Cumar bin Khadaab oo awoowe u ah Cumar ibn Cabdilcasiis uu mar yidhi, durriyaddayda waxaa kasoo bixi doona mid dhulka cadaalad ku dabaala. Qisooyinka ku saabsan Cumar ibn Cabdilcasiis iyagoo ay tiro badan yihiin ayaa waxaan jeclaystay inaan naftayda iyo dhammaan akhyaarta la wadaago hal arrin oo cibro qaadasho mudan. Marka khilaafada lagu wareejiyay amiirka ayaa maalin maalmaha ka mid ah xaaskiisa Faatima ibn Cabdimaalik ugu soo gashay guriga isagoo ilmo ka daadanaysa oo ay garkiisaba qoysay. Waxayna weydiisay, yaa amiir almu'miniin, ma waxbaa dhacay? Amiirka ayaa waxa uu yidhi, yaa Faatima, waxaan la wareegay talada ummadda Nebi Maxamed calayhi salaam, kooda guduudan iyo midkooda madow. Waxaan ka fikirayay faqiirka gaajaysan, bukaanka dayacan ama lunsan, midka tabarta daran, midkooda dulaysan, midka qafaalan iyo kan la la'yahay, midkooda duqoobay oo aan carruur badan haysta oo aan maal badan haysan, iyo kuwa la midka ah oo geesaha dunida kala jooga. Markaasaan ogaaday inuu Allah iga weydiin doono sidaan ugu cadaalad falay dhammaantood maalinka qiyaame, iyagoo igula doodi doona nabiga hortiisa calayhi salaam. Markaasaan ka baqay inaan waayo waxaan kula doodo maalinkaas. Cumar ibn Cabdilcasiis Allahu naxariistee ayaa isagoo sariirta xanuunka dartii la jiifa, waa xanuunkii uu la geeriyoon doonee, ayaa waxaa soo booqday in adeerkii Maslamah ibn Cabdimaalik, waxauna ku yidhi, yaa amiir almu'miniin, carruurtaada qofaad kala dardaarantay ma lahan, maal ama xoolo maadan uga tegin, ee adeeradood ama abtiyaashood maad ula dardaarantid. Amiirka ayaa waxa ugu jawaabay, carruurtaydu waxay noqon doonaan laba midkood, mid saalixana Allah ayaa taladiisa hagaa, wixii intaa ka baxsan ma noqonayo mid ilmihiisa uga kaalmeeya macsida Alleh salawaatullaahi wasalaamu calayh. Amiirka ayaa markaa ka codsaday xaaskiisa in carruurta qolka loo soo geliyo. Isagoo carruurtiisa la dardaarmaya ayaa waxauu yidhi, ilmahaygow, laba shay midkood ayaan kala doortay, inaad taajir noqotaan oo aabbihiin naar ku muto maalka, ama inaad faqiirtaan oo aabbihiin janno galo. Waxaan jeclaystay inaan faqiir ahaano oo Allah salawaatullaahi wasalaamu calayhi janno inagu abaalmariyo hadduu Alla idmo. Cumar ibn Cabdilcasiis waxa uu ahaa amiir faqriga aan dhib u arag, oo talada uu hayo la ahayd mid aad u dareensan culayskeeda. Sababta loogu magacaabay khaliifka shanaad ayaa waxaa ka mid ahaa inuu Alle ku kaalmeeyey in cadliga uu ku soo dabaalo dhulka Islaamka. Alle wuxuu ka ofsaday isagoo 39 bilood jira. Cumar ibn Cabdilcasiis Allahu naxariistee waxa uu inooga tegay taariikh ku dayasho mudan oo qof walboo talada muslimka qabta ay ku tahay xujo cad. Maalinka qiyaamo hadduusan uga soo bixin talada Islaamka uu hayo sidii la rabay, waxaa isweydiin mudan inta xukunka maanta inoo haysa meeqaa sida Cumar ibn Cabdilcasiis u fikirta. Miyay iloobeen in Alle hortiisa la soo istaajin doono oo la weydiin doono ummadda waxay u qabteen iyo siday xukunka u guteen? Waa su'aal hortaalla qof walboo talada ummadda qabta. Fadlan walaal, adigoo mahadsan, sheer dheh oo la wadaag walaalahaaga kale si uu u gaaro fiidiyowgan. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.